Kabaro kabogo kunaso Bulsha TV. fadhigii ay maanta yeesheen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominayay Baasha Maxamed Faarax ayaa waxa ka soo xaadiray 60 xildhibaan waxaana goobjoog fadhigaasi ka ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Talyalle oo ku tartamayay gudoomiyaha golaha wakiilada fadhigani markii uu furmay kadib ayaa waxa gudoomiye Baasha Maxamed Faarax uu fadhigaasi loo ballamay in maalinta Axad ah la isugu soo laabto lana dooran doono gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada waa kan qaabkii u dhacay furitaanka kal fadhigaasi goorabkii waa buuxaa fadhigu waynoo furan yahay waxaan soo jeedinayaa xildhibaanada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa weeye xildhibaano badan baa soo jeediyey fadhigii waxaan ka dhiganaynaa axadda loo codaynayaa ha laga soo qayb galo fadhiguna waa xidhan yahay